maanta ku dhawaad 30 qof ayaa deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose looga furay barnaamij dood wadaag ah kaas oo ay soo qabanqaabisay ururka By Women Development Organization. Deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose oo barnaamijkan lagu qabtay ayaa dadka ka soo qayb galay ka dhiibtay fikradahooda ku aadan dood wadaaga. waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay dood wadaaga ay u qabatay By Women Development Organization oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan dood wadaagan. sababta By Women waana kicisimo waxyaabo badan oo korkayna ku jira oo noo qarsanaay ay banaanka naga keentay marka intaas waxaan noqon doonaa documents noqon doonaa waxa hadda aan sheegnay waxay noqonayaan beri yani xafiisyaha oo ka furmi doona meesha waxyaabihii loo shaqeyn lahaa oo cadaalad lagu raadin lahaa ayay ka mid tahay korkiina in laga helo waay ilaa bulshada dhexdeeda garsoorka waxaas ku jira bulshada dhexdeeda ma waxay bulshada ay qoonsadaan wax yani cadaalad yani ku dhisan maaha laakiin waxay bulshada ay jeclaadaan waa wax cadaalad ku dhisan oo dhab ah ay isnoqnaa waxaad midleysaan bulshada aad ku nooshaan deegaanka Janaale aad midleysaan wax run ah oo cadaalad ah markii aad sheegtaan kaas wuxuu noqonayaa eray yani garsoorka as isticmaalo ay noqon doonaa insha Allah taala maxkamadii la furi doonaa hawshii yani oo cadaalad waa bilaaban doontaa insha Allah xogaa seminar gaabana waa helnay insha Allah shirkan in la furo oo ka hadlaya cadaaladda waxaan sugayna waay Soomaali waxay cadaalad dara ay tahay 22 sano maanta wax aniga aan sugayna aan u baahanahay waaye cadaalad waa maxay cadaaladda waxa waaye in meel la iskala soo jeedo oo runta la isku sheego oo gacanta la isqabsado oo meel la iskala soo jeedo. Gudoomiyaha deegaanka Janaale Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaalah oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in arrintan ay tahay arrin aad u wanaagsan isla markaana uu soo dhaweynayo dood wadaagan ku saabsan cadaaladda. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in xilligii hore kooxdii maleeshiyada argagixisada maamulkeeda deegaanka Janaale aysan ka jirin wax cadaalad ah taas oo bulshada loo qabto balse tani ayaa ah tilaabo uu maamulka qaaday isla markaana bulshada laga qayb gelinayo arrimaha dood wadaaga oo ku saabsan cadaaladda. waxaan joognaa deegaanka Janaale waxaan wada joognaa barnaamijka furitaanka doodii cadaaladda inaan ka doodno waxyaabaha keeni kara cadaaladda waa maxay cadaalad daro waa ogtiin wadankan in badan ay cadaalad daro ka jirtay inkastoo hadda waxa waa yaraanayso inaan ka doodnaa rabnaa marka inkastoo ay soo gaarin wax cadaaladda Janaale ay kooxna wadida heesa jireen cadaalad laga sheekeyn jirin inaan ka sheekeyno cadaaladda rabnaa waa maxay cadaalad sidee cadaalad ku imaan kartaa barnaamijkan waxaa gacan weyn ka geystay organization lahayo By Women Development Organization marka waxaan leenahay teamkaas ayagana waxaan leenahay aad u mahadsantihiin inay soo gaarto barnaamijka cadaaladda Janaale tuulooyinkeeda meel walba ay gaarto aad idinkaga mahad celinaya doodan waxaan rabaa marka idinkan inaad si fiican ugu doodaan wixii cadaalad dar iyo wixii cadaalad keeni karo aad u mahadsantihiin dood waa furantahay. Ku dhawaad tiro gaaraysa 30 ruux oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Janaale ayaa barnaamijkan dood wadaaga oo ay soo qabanqaabisay By Women Development Organization ka faa'iideystay. Sidoo kale waxa ururkan ay ka fulin doonaan degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose iyo degmada Awdheegle isla gobolka Shabeellada Hoose.